kulan balaaran oo ay soo qabanqaabisay beesha Sacad oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa taageero iyo garab istaag loogu muujiyay musharax madaxweynaha Galmudug Mudane Liibaan Axmed Xasan. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen dhammaan odayaasha dhaqanka, waxgaradka, siyaasiyiinta, dhalinyarada iyo saraakiisha beesha Habargidir iyo adeerkooda Duduble ayaa muujiyay midnimo iyo taageero xooggan oo ku wajahan musharaxa. Odayaasha dhaqanka beesha Habargidir iyo Duduble oo goobta ka hadlay ayaa si cad u sheegay in ay garab tahiin musharax Liibaan Axmed Xasan, iyaga oo ku amaanay hogaamintiisa iyo himiladiisa ku aadan sidii loo heli lahaa Galmudug oo mid ah oo nabad iyo dib u heshiisiin ku dhisan. Liibaan muddo dheer buu maaragtay hadda howlahan ku soo jiray ilaa intii Galmudug la soo dhisahayay ilaa dawladdii dhexe nin maaragtay ka dhex muuqda oo door weyn ka qaatay oo hadda aan la lahayn warinkan xagee ina ka jiraa weeye. marka waxa la ina ka rabaa oo tolka sharafta badan la ina kaga rabaa muhiimadda gogashaan oo kale waa uu laba qodob waxa ka soo baxaa. qodobka koowaad ninka musharax ah inuu asagu maaragtay musharaxnimadiisa halkan uu ku soo shacab bixiyo oo maaragtay uu ku muujiyo, iyo tolka sharafta badan oo loo yeeray inuu ka helo taageero iyo talo iyo taageeraba inuu ka helo. midda la inuu yeeray baa middaasa la isaga hari maayo oo Liibaan waa ka hadda nooga sheekeeyay siiradiisii iyo intuu u soo maray Galmudug iyo dib u heshiisiinteeda iyo maxaan ku raahdaye wanaaga uu soo qabtay iyo waxtarkiisa. nin haddii ilaahay u qadaro subxaanahu wa tacaala ka bixi karana waan isleeyahay insha allahu tacaala. waxaana isleeyahay hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala qalinkaa ugu dhufto inuu maaragtay hore u socodsiin karo Galmudug insha allahu tacaala. annagu waxaan leenahay beesha Saruur haddaan nahay waa soo dhawaynaynaa. si gaarana waayahan Sacadka iyo Saruurka waa la isku xamanayay, marka waxaan leenahay maaragtay abaalna waa ka sheeganaynaa run ahaantii xaradheere iyo maaragtay juhdigii uu maaragtay beesha Sacadna ay si gaar uga geysatay, madaxweynuhuna uu maaragtay maraan fogeyn buu nagu soo booqday oo noogu yimid. marka insha Allah waxaan naga filataan waa khayr. marka gooshaas raabtayaashay dhigeen waa aqbalay waana u codeeyay murashax madaxweyne Galmudug Mr. Liibaan waa soo dhawaynaynaa. mudane musharax madaxweyne Liibaan abti soo dhawaaw, abti soo dhawaaw, abti soo dhawaaw, tolkoo dhan soo dhawaada, raabtayaashay soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddee Sacad wax ka hoola badan oo gogosha ay dhigeen iyo say isu garab taageen howladu wax liita ma aad iyo aad mataqaanaa meeshaan maanta ay u mudan tahay in mataqaanaa loo taageero tolkana waa ku siinay, ducana waa lagu daraya. Galmudugna maanta dekedna inay yeelato, dusheedana badeedana maanta ceel shidaal oo ka boqo ala rajeeyaa ninkii maanta tagaani raay inuu noqdo loo baahan yahay. madaxweynaha tartanka u diyaarka ah Liibaan Axmed Xasan waa soo dhawaynaynaa in ilaahay oo ka dhiga asaga Liibaan insha Allah. waana soo dhawaynaynaa codkeenana waa siinay. waa mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Liibaan waa soo dhawaynaynaa si weyn, reer Sacadna waa soo dhawaynaynaa. marka koobaad waxay soo dhawaynayaan gogosha reer Sacad dhigeen, marka labaadna murashaxnimada Liibaan ee Galmudug way soo dhawaynayaan. kaygaan hormarsanayaa aniga mar haddii mikrofoonka la ii dhiibay wixii Sacad rabay waa siiyey. waa markii Cabdul joogo wixii la jiray waa la jiray. waxaan ka mahad celinayaa marka koowaad gogasha magaca beesha aan jecelnahay ee walaalaheena Sacad loogula dhigay kana dambeeyay arrintu mudane musharax madaxweyne Liibaan Axmed Xasan oo raad ku ahaa. waa ka mahad celinayaa dhammaanteen. ilaahay baan u mahad celinaynaa suuqan ya keenay. ilaahay inuu noosii nasjaclaysiiyana waa asagana ilaahan ka baryaynaa. Mudane Liibaan Axmed Xasan ayaa muddooyinkii u dambeeyay safaro shaqo ku marayay deegaano ka tirsan Mudug iyo Galgaduud, halkaas oo kulamo kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada kana dhageystay baahiyahooda dowladeed iyo arrimaha horumarinta ee ay doonayaan. intaas waxaa dheer musharax Liibaan waxa uu door muuqda ka qaatay dadaalada lagu xalinayo colaadda dhex martay beelo walaalaha ku nool deegaanadaas, taas oo muujinaysa sida uu xoojinayo nabadda iyo wadajirka bulshada reer Galmudug.
ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 4 gees